bangiga amal oo looga bartay tayeynta iyo sare u qaadida dhinaca waxbarashada iyo sidoo kale wax u qabashada qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu munaasabad ballaaran u dhigay arday ka qalin jibisay dugsiga hoose dhexe sare ee Guulwade ee magaalada Kismaayo kuwaas oo soo dhamaystay waxbarashadoodii dugsiga sare isla markaasina uu bangigu u sameeyay munaasabad lagu sagoontinayo ardaydaasi ayna ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada ee maamul goboleedka Jubbaland madax ka socotay jaamacadda Jubba Soomaaliya iyo sidoo kale madax ka socotay jaamacadda Kismaayo guddiga iskuulka Guulwade waalidiin macallimiin aqoon-yahano ardayda iskuulka iyo sidoo kale madax ka socotay bangiga amal xaruntiisa magaalada Kismaayo iyo marti sharaf kale munaasabada ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah macallimiinta iskuulka. First and foremost, I would like to thank Amal Bank, one of the greatest banks in the world. They always stand to help the society and community. This beautiful ceremony is implemented and funded and simplified by Amal Bank on behalf of the teachers of Guulwade and a member of people of Kismaayo. I'm saying we are all the people of Amal Bank. waxaan u mahadcelinayaa Amal Bank mar walba runtii xafladda weyn u adkeed inay noo qabsoonto annagoo galabkii kala quusanay ayna soo waceen Amal Bank magaalada Kismaayo aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waasaan u baran Amal mar walba aad doonaa insha Allah anigoo ku hadlaya macallimiinta afka Guulwade waliba liiga munaasabsan yahay in ay macallimiin kala hadlaan haddana waxaan hambaliyo ballaaran u dirayaa ardaydii ka qalin jabisay sanadkan runtii maamulaha iga dambeyn doona wax qabadkooda hal ilaa haddaan ka taabto ardaydan aniga markaan macallin noqonay waxay ahaayeen fasalka 7 laba bil ayaa ugu dhinaa inay class 8 aadaan runtii meesha hadda idin muuqata ee xafiiska hortiisa waxay idin kaga muuqda sawiro ku xardhan qaaradda Soomaaliya periodic table iyo waxyaabo kale oo ku saabsan caafimaadka waa ardaydii ku sawirtay ardaydii ugu horeysay ee isku dayday iskoolka meelo ka yara jajaban inay inta lacag iska aruuriyaan dayactiraan iskooda ay ahaayeen ardaydan markaa fiirisid 3 meel markii loo qaybiyo meel iyo bar waxay ka baxeen macaahid diini ah sidoo kale ayaa waxaa madasha ka hadlay Maxamed Daahir Cabdullaahi oo ka mid ah madaxda bangiga amal xaruntooda magaalada Kismaayo waxaana uu sheegay in bangiga amal uu taageero la garab taagan yahay guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaasina uu ka taageeri doono dhinacyada waxbarashada iyo horumarinta qaybaha kala duwan ee bulshada. عادي تضوات سكول كجولوده فرنت كواد حلي هاي أرضيدا قلنا جبيرة سامانتا همبليو حد قاعدين هم الذي أما الجدوين كأنه شكل هيدين وحبرشوا قيب كم ذا ولي بقى قيبتي أساسي جاهيد وقومهم سند دين على وحبرشوا حلي هاي دال كاس سيوضا marka kale waxaan leeyahay sidee ku gaari kartaan cilmiga inaad sii wadaan oo aad ku noqotaan dad aqoon-yahaniina dardaaran yar oo ku saabsan arintaasna inaan idin soo jeediyo ayaan jeclaystay marka koowaad waxa weeyaan waa inaad ka leedihiin nolosha himilo ama wax aad target aad leedihiin waa inuu jiraa oo aad rabtiin inaad gaadhiin haddaadan target lahayn ونلاش تارجت هذا كلاهين وهذا ربين وحنا تجديد أما تربتيد إن هذا مستقبل كنقطيد وحبرشة أتجلسيد متى قانيد مركب كواد أهمية كواد حويان وين التارجت لهذا أما يول أما فيشين فوق وأتربتيد إن تجديد وأتربتيد إن حقيقي جسد نلاشة مركب هذه هرول هاي ها ساعة كجاري له كددال haddii aadan hore u lahaynna hadda inaad samaysatid isku day oo maanta aad qoratid marka labaad qodobka labaad aan rabo inaan kula dardaarmo waxa weeyaan inaad dadaalka aydan dhihin intaan soo wadnay baan ugu filan dadaalka inaad sii wadaan oo aydan nasanin ilaa aad ka gaadhin targetkaas tusaalahan oo kale kutubkan Bukhari uu qoray waxa weeyaan habeenkii intaasoo jeer buu soo kici jiray marka uu qorayo habeenkii muusan seexan jirin
waxaas oo dadaalo wuxuu u bixinayay in cilmiga maanta aragteen laga dhaxlo axaadiistii dhan uu koobo oo kitaabka ugu caansan xagga axaadiista dadaal baa ku timaaday taas midda kale qodobka saddexaad kale aan kula dardaarmay waxa weeyaan sabar nolosha waxaa idinka hor imaanaya caqabado badan oo xag duruuf maaliyadeed ah xag bulshadii ku dhex nooleedeen ah oo hadday ahaan lahayd inay idin dhahaan maxaa wax ka baranaysaa kuwii hore wax bartay oo meelahay fadhiyaan waxaasoo dhan waa inaad u sabartaan si aad u gaadhiin yoolkiina waxaa u baahantihiin inaad sabartaan oo aad nolosha ku sabartaan waxyaalihii idinka hor imaanaya midda kale oo muhiimka ah waxa weeyaan xusnu dhann billaah inaad mana wanaagsan aad ka yeelatiin ilaahay oo aad ilaahay wax fiican ka rajaysaan in dalku wuu burburay sax haddaa la soo kabanaya oo dadkii wax badan bay fahmayaan mar walba inaad malo fiican ka malaysaan ilaahay inuu bedel khayr qaban siiyo oo sidaan maanta naanay si ka wanaagsan inuu dalku yeelan doono oo dalkiina aad aamintaan oo aad wax ku barataan waa muhiim iyaduna oo dalka inaydan ka cararin inaydan dhihin Soomaaliya wax ma lagu baran karo inaydan dhihin dakhligii ama waxaan wax ku baran lahayn ma haysano bilow marka koowaad waalidiintana waxaan kula dardaarmayaa inay xusnu dhann billaah ku dadaalaan qodob kale oo muhiim ah oo ka qayb qaadanaya inay ardayda hadda maanta qalin jabisay ay sii wataan waxbarashadooda midda kale qodobka kale aan rabo inaan kula dardaarmo waxa weeyaan camalka inaad joogtaysaan haddii aan lahayd wax akhrintii haddii aan lahayd daraasadii aad wadeen inaad joogtaysaan oo camal joogto ah aad samaysaan maalin walba nolol maalmeedkiina oo hadafkiina uu ku qeexan yahay camalka aad qabanaysaan midda kale ugu muhiimsan waxa weeyaan inaad dhahdaan waan samayn karnaa erayga ah inaad adeegsataan waan samayn karnaa waan gaari karnaa mar walba inaad adeegsataan oo ah adduunka maanta raggan ka gaaray cilmiga meelaha sare waxa weeyaan duruuf baa la soo wada maray China Japan adduunka waa dalalka labaad iyo saddexaad adduunka ugu dakhliga badan dadkooda waxa weeyaan Yurub bay u aadi jireen xagga cilmiga waxbarashada laakiin markii koowaad way u sabreen raggii keenay Japan horumarka gaarsiiyay waxa weeyaan sabar badan bay muujiyeen marka waxa weeyaan inaad waan samayn karnaa inaad dhahdeen cunsurka Soomaaliga waa cunsur muhiim ah adduunka waa laga yaqaanaa inaan nahay dad adag oo karti leh oo halku dhag fiican leh oo barnaamijka binaadamku sidiisa annaas macaadin adduunka binaadamku waa macaadin binaadamka markaa waxa weeyaan cunsurka Soomaaliga waa cunsur aad iyo aad u fiican xagga aqoonta xagga waxbarashada inaad dhahdaan waan samayn karnaa wax walba iyadana aad adeegsataan intaas waa intaan idin kula dardaarmayay kaamal banki ahaan waa bangi ku shaqeeya sharciyada islaamka himiladiisuna ay tahay himiladeenu waa horumarkiina oo ah inay bulshadu horumarto baan mar walba u dhisanahay aan u jirnaa soo marka waxa weeyaan mar walba waxa weeyaan inaan ka qayb qaadano bulshada horumarkeeda haddii aan lahayd xagga waxbarashada haddii aan lahayd consulting inaan dadkii la talino waxbarashadii kula talino waxaas oo dhan waxaan u jirno jiritaankeenna weeye haddii ay ahaan lahayd waalidiinta kale waxaan u haynaa barnaamijyo ay ku gaarsiin karaan waxbarashada ardaydeedu heer sare tusaalahaan oo kale waxaa jira account saving account aan leenahay oo ay wax ku kaydin karaan tusaalahaan oo kale educationka oo kale waxbarashada cunuga marka uu rabo inuu gaarsiiyo mustaqbalka inuu waxbarasho jaamacad u diro haddartaan amal banki buu imaanayaa account buu ka furanaya account saving account kaas maalin walba wuxuu helo uu dhigayaa ama bil walba wuxuu helo uu dhigayaa uu ku keedsanayaa si uu u gaarsiiyo bari himilada ardaygiisa uu ka leeyahay wiilkiisa uu ka leeyahay inuu jaamacad dibadda u diro hadalka waan dheereeyay waxa weeyaan dardaaran xagga waalidiinta baan u soo jeedinayaa ugu dambeyn iyo xagga ardayda dardaaranka ardayda u soo jeedinaya waxa weeyaan inay waxbarashada sii wadaan oo ay dadaalka aysan halkaa ku joojin midda kale waalidiintan waxaan leeyahay ardayga jaamacadda aad u diraysid asaga ma ogtahay wuxuu ku fiican yahay marka koowaad intaasaa muhiim
adiga ha u dooqin ardayga oo ha dhihin ardayga waa inaad dhigatid caafimaad waa inaad dhigatid computer ha dhihin meesha dakhliga badan ha raadinin waxaad raadaysaa ardaygu muxuu ku fiican yahay marka uu yaraa waa inaad la socotid wuxuu ku fiicnaan jiray marka kadib asaga wuxuu ku fiican yahay u door qaybta ku fiican yahay halka uga door intaasaan kusoo gabagabeynayaa billahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale ayaa waxaa madasha ka hadlay guddiga iskuulka iyo sidoo kale waalidiinta ardayda iyo aqoon-yahano ka soo qayb galay xafladda kulankan wuxuu ku saabsan yahay xaflad ardo dugsiga sare ka qalin jabisay xogaha dardaarana ardada qalin jabisay oo tiradooda lagu sheegay 42 arday waxaan kula ballamaynaa anigu waalidiinta ayaan ka mid ahay guddiga iskuulkana ka mid baan ahay waxaan kula dardaarmaynaa ardaydiina soo baxday awalo ku sugnaada diintiina iyo caaqidadiina inta idin dhalay iyo ummadda Soomaaliyeed oo aad u qaran jabiseen oo qaybtii hore waxbarashada aad u soo gudubteen misaad ugu adeegi lahaydeen oo aad u midayn lahaydeen oo baahida ka jirta dalka aad u dabooli lahaydeen isku daya dada ilaa dhowr iyo 10 sano oo waqtiga aad aragteen lagu jiray dhibka ay lahayd iyo waad garan kartaan iyo dadaalkeedu hadda waxaan isleenahay waxaan ku qanacnay oo maqsuud ka nahay macnaha miisaanka ay leedahay intaan ku soo dhimanay inta ummadooda halkaan isugu timid oo kala duwan waxaan garan karnaa waxaan baraynay miisaanka ay leedahay oo aan ma tilmaami karno waxbarashada qaybaheeda kala duwan ama hore loo soo maray ama inta u dhiman laakiin waxaan qiyaasi karnaa ama tilmaami karnaa kulanka inta hay-adood ama maamul ama mas'uuliin isugu timid oo ka qayb qaadanaysay markay ugu liidato intaasaan tilmaami karnaa waa waxaan maqsuud ka nahay weeye raallina ka nahay soodad ardayga dhib badan baa kaga imaanayo hal sano haddii aad dib u dhacdid nafta ma lagaa qaadan geerina ma kugu imaanayso waxaa ka daran faculty aadan takhasus u lahayn inaad baratid oo hadhow aad ku dhex wareegtid caafimaad baad baranaysay adoo caafimaad iyo biology iyo chemistry physics si fiican u yaqaano oo inaad kulliyadda caafimaadka baratay rabtid baa financialka lacagtii aad ku baran lahayd u weysay waxaad iska aad IT iyo business waa wareerka ardayda badan ay ku wareeraan ardayda waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan leeyahay hamigiina inuu sareeyaal raaw waxbarashadiina aad ka mari dhalisaan Soomaaliya iyo wadan kale aad qorbo wax ku saabartid wax farqi ah ma dhaxeeyo inaad wadankaad wax ka barataa kaga fiican 100%. sidoo kale ayaa waxaa madasha ka hadlay mas'uuliyiin ka kala socday jaamacadda Kismaayo iyo jaamacadda Jubba Soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada ee maamul goboleedka Jubbaland waxaana ay u mahadceliyeen bangiga Amal oo ay sheegeen in uu taageero qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo horumarinta qaybaha kala duwan ee ay bulshada u baahan tahay waxaan ugu horeyn anoo ku hadlay magaca jaamacadda Kismaayo inaan u hambaliyeeyo dafcada toddobaad ee ka qalin jabisay iskuulka laba hambaliyaan rabaa inaan u diro iskuulka marka koowaad waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo iskuulka Goolwade guushii uu ka gaaray tartan aqooneedkii bisha Ramadaan marka labaad waxaan u hambaliyaynaynaa si gaar ah form 4 oo dadaalkoodii faraha badnaa 12 sano ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku guuleeyay waxaa la fiiriyaa saddex shay takhasuska aad dooranaysa waxaa fiirisaa marka hore ma jeceshahay takhasuskaas takhasus aad ka heshay ma yahay tan iskuulka daa xisaabta nacab tahay jaamacadda injineeriya ma geli kartid waa isdhibaysaan marka takhasuska aad dooranaysa inuu yahay takhasus aad jeceshahay marka labaad takhasuskaas in ay fursado ka jiraan dadka oo dhan haddii takhasuska ay bartaan in aadna ku beerto sharaf weyn bay maanta noo tahay anigoo ku hadlahaya afka jaamacadda Jubba ee Soomaaliya inaan idinkala soo qayb galno xalfadan sida sharafta badan loo soo abaabulay waxaan rabaa inaan kelimooyin u jeediyo ardada oon dhaho
waxaad haysataan arday dal aad hoggaan ka noqon kartaan waxaad haysataan dad aad hormuud ka noqon kartaan waxaad haysataan dal ood leedihiin aad haliyeeyo u noqon kartaan waxaad ogaataan cilmiga inuu nuur yahay ilays inuu yahay cilmiga oo shakhsiga ilays u yahay qoyska iyo usradana oo ilays u yahay dawladda iyo qarankana ilays u yahay adduunka oo dhanna waxa iftiinkaa baxahaya ee meel kasta lagu gaadhahaya waa cilmiga weeyaan ninkii adduunya doonahaya cilmiga unbuu ku jiraa aakhira ninkii rabana cilmigu ku jiraa labadooda ninkii isla rabana cilmiga unbuu ku jiraa oo lagu gaadhi dawladaha iyo dalalka qayrkeena waxaan ku gaadhaynaa oo kaga hormaraynaa waa cilmiga weeyaan waxaad ka soo baxday marxaladdii ugu fiicnayd ee qofka uu waxtarkiisa u gaari lahaa ayaa hadda ayaad geli doontaa marka waxaan leeyahay markaan rabo waxaan doonayaa inaan tawjiihaad ama irshaadaad aan siiyo ardadaasi waxaanayna leeyahay waxaad ku soo biirteen xilli dalkii burbursanaa nusqarniga in hadda xilli fiican uu marayo ayaad ku soo biirteen ood u qalin jibiseen marka waxaan idin leeyahay waxaad noqotaan dafaacaadka ka soo qalin jibiya iskuulaadka ama dugsiyada waxbarashada ee degmada Kismaayo inaad noqotaan hormuud aad u noqotaan bulshadiina ay kow ka tahay degmadiina horumarkeedii inaad horta ka shaqaysaan iyo amnigeeda si kastaba ha ahaatee ardaydii ka qalin jibisay iskuulka Guulwade ee munaasabadan uu dhigay bangiga Amal ayaa ka mahadceliyay waxaana ay sheegeen in xafladan ay aad ugu faraxsan yihiin isla markaasina ay u mahadcelinayaan mas'uuliyiinta bangiga Amal ee xaruntiisa magaalada Kismaayo maxamed qaasim cali waxar magaalada Kismaayo